Mark ayaa ugu dambeyntii dhulka kaga soo toosay madax xanuun daran wuxuuna u qaatay inuu khamri badan cabay. Xilligaas wuxuu dareemay ur la yaab leh wuxuuna arkay jiir dhintay oo duqsi ku habsan yahay. Mark oo naxsan ayaa soo fariistay wuxuuna ogaaday inuu ku dhex jiro qol aad u yaab badan. Qolku waa marnaan marka laga reebo kabadh derbiga ku yaal iyo nalka saqafka. Albaabka weyn ee birta ah wuxuu muujinayaa in meeshu tahay qasnad vault. Mark wuxuu isku dayay inuu furo laakiin gacanta albaabka xitaa ma dhaqaaqayso. Kadib wuxuu ku garaacay albaabka wuxuuna weydiiyey saaxiibadiis inay ka furaan isagoo u malaynaya inay tani tahay kaftan ay ku dhigayaan. Si kastaba ha ahaatee cidna uma jawaabin. Markuu isku dayay inuu isticmaalo taleefankiisa wuxuu ogaaday inaysan wax calaamad ah signal lahayn. Wuxuu isku dayay inuu furo kabadhkana laakiin qufulka ma dhaqaaqayo mana arki karo waxa gudaha ku jira. Markuu isku dayay inuu urin kabadhka duqsiga ayaa mar kale dhibay. Mark wuxuu raadiyey kaamirooyinka amniga laakiin ma helin midna. Wuxuu ku hanjabay inuu qolka dhexdiisa ku kaadin doono haddii aan si dhaqso ah loo soo badbaadin maadaama weli jawaab loo waayay wuxuu ku kaadiyey gidaarka isagoo caayaya dadka afduubay. Saacadaha soo socda Mark wuxuu iska fariistaa dhulka isagoo iska hadlaya isagoo isku dayaya inuu qiyaaso sida uu halkan ugu soo dhacay laakiin wax badan ma xasuusto. Wuxuu ogaaday haddii qof uusan si dhaqso ah u soo qaadin inuu dhulka ku saxaroon doono sidoo kale. Kadib wuxuu bilaabay inuu qayliyo isagoo sheegaya inuu gaajaysan yahay oonayo uuna u baahan yahay inuu u waco maamulihiisa sababtoo ah maalin shaqo ayaa ka maqan. Wuxuu bilaabay inuu albaabka ku garaaco xitaa suunka ayuu iska bixiyey si uu buuq badan u sameeyo laakiin dhammaantood waa wax aan waxba tarayn. Kadib dhowr daqiiqo oo uu ka cabanayay jawaab la'aanta iyo urta jiirka dhintay Mark wuxuu bilaabay inuu haraantiyo kabadhka taas oo aan sidoo kale waxba tarin. Kadib wuxuu ku korfuulay kabadhka wuxuuna dalbaday in dibadda loo saaro isagoo mar kale u qaylinaya si aan waxba tarin. Maalintii xigtay Goryaan Maggots ayaa ka soo muuqday jiirka. Mark wuxuu mar kale ku seexday dhulka markuu soo toosayna wuxuu arkay inaysan waxba isbedelin. Wuxuu eegay taleefankiisa markuu si lama filaan ah uga dhacayna wuu jabay. Wax faa'iido ah ma lahayn maadaama uusan weli wax signal ah lahayn. Isagoo aan u dulqaadan karin oonka dambe Mark wuxuu go'aansaday inuu ku kaadiyo kabtiisa oo uu cabo si uu u qoyo dhuuntiisa. Waxay u dhadhamaysay si karaahiyo ah markaas wuxuu isku dayay inuu iska dhigo inay tahay biir. Kadib markuu in muddo ah sii qayliyey wuxuu gashaday kabtii qoyanayd ka hor inta uusan haraanti kala daalin jiirka iyo albaabka. Kadib wuxuu ku dhuftay nalka wuxuuna dareemay wax gudaha ku jira. Wuxuu u garaacay si ka xoog badan si uu u soo dhaco wuxuuna helay fure. Mark wuxuu ka baqayaa waxa uu heli karo laakiin haddana wuu furay kabadhkii waxaana ka soo baxay laba haamo gaas ah iyo xoogaa qalab ah. Marka hore Mark wuxuu isticmaalay dubbe iyo bir af leh bisel si uu albaabka ugu jebiyo taas oo kaliya rinjiga ka xoqday laakiin xitaa birta ma aysan dalooshan. Markaas kadib wuxuu la halgamay haamaha ilaa qalab ka caawiyay inuu furo. Isku xirka qalabka oo dhan waqti ayay ku qaadatay sababtoo ah ma uusan aqoonin laakiin ugu dambeyntii wuxuu ku guuleystay inuu ka dhigo mid shaqaynaya haddana wuxuu haystaa mashiinka alxanka blowtorch oo shaqaynaya. Isla markiiba dabkii ayuu u jeediyey dhinaca biyo shubka sprinkler ee saqafka ku yaal laakiin waxba ma dhicin. Kadib Mark wuxuu u isticmaalay blowtorchka albaabka. Waxay ku samaysay birta calaamad gubasho ah laakiin ma jabinayso. Wuxuu isku dayay inuu dubbe ku garaaco meeshii gubatay laakiin sidoo kale waa wax aan waxba tarayn. Markoo caraysan ayaa kabadhkii dhulka ku tuuray oo xoogaa garaacay. Kadib wuxuu ku korfuulay si uu u gaaro biyo shubka sprinkler uuna dubbe ku jabiyo. Daqiiqadaha soo socda Mark wuxuu caradiisa kula baxay shay kasta oo uu gaari karo ilaa wax kasta ay burbureen. Wuxuu istaagay oo kaliya markuu ogaaday inuu luminayo biyo badan oo jirkiisa ah dhidid. Isagoo dhulka fariista wuxuu bilaabay inuu dib u eego waxyaabaha uu ka yaqaan xaaladiisa hadda wuxuuna soo gabagabeeyey in qof uu rabo inuu si tartiib ah u dilo isagoo fiirsanaya dhibaatadiisa. Xilligaas wuxuu arkay dalool derbiga ku yaal wuxuuna go'aansaday inuu bilaabo inuu ku weyneeyo qalabka. Booska ayaa indhaha ka galay inta uu shaqaynayo laakiin taasi waxay ka dhigtay mid sii caraysan oo aad u doonaya argoosi. Xitaa markuu gacanta isaga dhuftay dubaha Mark wuxuu sii wataa shaqada isagoo istaagaya oo kaliya markuu u baahan yahay inuu nasto si uu xoog u helo. Ugu dambeyntii aad ayuu u daalay neefsashadiina way ku adkaatay markaas ayuu in yar ka neefsaday gaaskii haanta ku jiray taas oo keentay inuu miyir daboolmo. Nasiib wanaag si degdeg ah ayuu u soo toosay oo haantii ayuu xiray ka hor inta uusan wax xun dhicin. Kadib wuxuu cunay Goryaankii Maggots ka soo baxay jirka isagoo si kaftan ah u leh waa kuwa caafimaad leh oo dabiici ah. Waxay u dhadhamayeen si xun laakiin haddana wuu cunay intii uu awooday. Ugu dambeyntii wuxuu mar kale ku kaadiyey kabtiisa oo uu cabay taas oo ku dhawaad ka dhigtay inuu soo mantago. Kadib markii uu in muddo ah derbiga ka shaqaynayay Mark wuxuu helay biirtii xoojinta reinforcements. Isla markiiba wuxuu soo qaatay blowtorchka wuxuuna qoslay isagoo isticmaalaya dabka si uu ugu guulaysto inuu jebiyo birta. Isagoo u malaynaya inuu gaaray dhexda derbiga wuxuu sheegay inuu dhowaan dibadda u bixi doono. Kadib wuxuu ku seexday kabadhka dushiisa. Mar dambe duqsiga ayaa mar kale toosiyey Mark wuxuuna isla markiiba bilaabay inuu daloolka ka shaqeeyo. Markan wuxuu shaqaynayay waqti ku filan si uu ugu dambeyntii u gaaro dhinaca kale. Cidna uma jawaabin markuu hadlay markaas ayuu shaqadii sii watay ilaa daloolku ka weynaaday si uu jirkiisa uga dhex saaro. Kadib halgan badan wuxuu gaaray qolkii kale aad ayuuna uga xumaaday markuu arkay albaab qasnad ah oo la mid ah kiisii hore. Albaabkan sidoo kale ma furmayo wuxuuna u garaacay si caro leh. Markuu Mark soo jeestay wuxuu arkay laambad dhacday naxash kofin iyo silsilad saqafka ka laalaada. Isagoo silsilada jiidaya ayay nalkii u shidmay.
isagoo ka walwalsan waxa naxashka ku dhex jiri kara. Mark wuxuu daloolka ka soo qaatay birta afka leh dhisel haddii uu u baahdo hub ahaan. Kadib wuxuu furay naxashkii wuxuuna ka dhex helay haweenay hurda. Dhowr jeer ayuu ku mudeeyey iselkii laakiin waxba ma dhicin, laakiin ilbiriqsi kadib ayay iyadoo qaylinaysa soo toostay. Haweenayda ayaa naxday sababtoo ah waxay u malaysay in Mark uu rabo inuu wax yeelo, waxayna u carartay dhinaca albaabka iyadoo ku hadlaysa luqad uusan fahmin. Maadaama albaabku uusan furmayn, haweenayda ayaa daloolka uga gudubtay qolkii kale ee qasnada ahaa. Mark wuxuu isku dayay inuu raaco isagoo leh wax walba waa caadi, laakiin taasi waxay ka dhigtay inay sii qayliso. Markaas ayuu dib u joogay. Wuxuu dumay isagoo ogaaday sida ay u tahay wax lagu qoslo inuu dhaho wax walba waa caadi, wuxuuna bilaabay inuu qoslo. Wuxuuna istaagay oo keliya markii haweenaydu daloolka uga soo tuurtay jiirkii. Mark wuxuu go'aansaday inuu nalka damiyo uuna ku seexdo naxashka dhexdiisa. Haweenayda ayaa kormeertay qolka waxayna ku kaadiyey koonaha. Maalintii xigtay, haweenayda ayaa daloolka ka soo gashay iyadoo iselkii gacanta ku haysa, waxayna mudaysay Mark ilaa uu ka soo toosay. Isagoo ogaaday inay weli ku dhex jiraan dabinka, wuxuu isku rogay dhinaca kale oo huradiisii ayuu iska sii watay. Markaas haweenayda ayaa nalkii oo dhan shiday waxayna siisay iselkii. Mark ayaa naxashka ka dhacay markuu isku dayay inuu soo baxo. Haweenayda ayaana markaas siisay dubihii iyadoo si cad u doonaysa inuu dalool kale qodo. Kadib markii uu ka dhigay inay doorato gidaarka xiga, Mark wuxuu ka dhigay haweenayda inay iselka u hayso inta uu dubaha ku garaacayo. Si kastaba ha aweeyee, haweenayda ayaa ka baqday in la dhaawaco, gacmaheedana dib ayay u laabatay. Maadaama ay diiday inay sidaas ula shaqayso, Mark wuxuu ku raacay inuu isagu iselka haysto iyaduna ay dubaha ku garaacdo. Haweenayda si xoog leh uma garaacin, gidaarkuna xitaa xog ma yeelan. Markaas Mark ma haysan dooq kale oo aan ka ahayn inuu isagu mar kale sameeyo. Mar kasta oo uu nasto, waxay isku daydaa inay xoogaa shaqo ah qabato, laakiin gacanta ayay iska dhaawacdaa. Mark wuxuu sii yaaban yahay cidda meeshan dhigtay isagoo eegaya haweenayda, wuxuuna bilaabay inuu soo jiito. Si kedis ah haweenaydii ayaa u carartay qolkii kale si ay u kaadiso, Markna wuu raacay. Markaas ayay soo qaadatay gabal muraayad ah si ay isaga difaacdo sababtoo ah waxay u malaysay inuu rabo inuu dib u geysto. Wuxuu u tuuray mid ka mid ah kabihiisa isagoo isticmaalaya calaamado gestures. Wuxuu ka codsaday inay ku dhex kaadiso si uu u cabbo. Marka hore haweenayda waa diiday, markaas ayuu u qayliyey ilaa ay fikirkeeda ka beddeshay. Waxay ka dhigtay inuu dhabarka u jeediyo ka hor inta aysan ku kaadin kabta, kadibna way u soo celisay. Kadib Mark wuxuu cabbay kaadideedii, xoogaana wuu u reebay si ay iyaduna u qoyso dhuunteeda. Wuxuu sidoo kale cunay gooryaan maggots, wuxuuna isku dayay inuu la wadaago, laakiin way ka diiday. Markuu Mark bilaabay inuu ka fikiro inuu cuno jiirka, haweenayda ayaa ka joojisay maadaama taasi ay ka dhigi lahayd mid xanuunsada halkii ay wax u tari lahayd. Mar dambe inta uu Mark shaqaynayay, haweenayda waxay ka hadashay nolosheeda guriga ee Afrika weyna oyday, laakiin weli ma uusan fahmi karin. Isagoo doonaya inuu dareenkeeda ka qabiyo, Mark wuxuu bilaabay inuu si xun u heeso, haweenaydiina way qososhay. Wuxuu ka codsaday inay iyaduna heesto, waxayna la wadaagtay hees dhaqameed codkeeda macaan ku socota. Waxay ku garaacaysay derbiga si ay laxanka u raacdo, Markna wuxuu bilaabay inuu dubaha u garaaco isla laxankaas. Tani waxay ka weecisay dareenkiisii, wuxuuna ku dambayntii ku dhuftay gacantiisa. Isagoo arkay inuu dhiig baxayo, haweenayda ayaa maro ka goosatay koofiyadeedii waxayna u xirtay gacantiisii. Hadda Mark ma haysato dooq kale oo aan ka ahayn inuu iselka haysto iyaduna ay dubaha ku garaacdo. Inkasta oo ay aad u gaabis tahay, haddana si kedis ah ayay gacanta uga dhufatay dubihii. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu yiri waa caadi, wuxuuna ka dhigay inay sii socoto. Si kedis ah gacanta albaabka ayaa dhaqaaqday. Haweenayda ayaa u carartay inay furto laakiin ma shaqayn. Mark ayaa raacay si uu isku dayo isna, laakiin sidoo kale ma shaqayn. Wuxuu ku garaacay albaabka isagoo caawimaad u qaylinaya, haweenaydiina way oyday. Isagoo diidan inuu tanaasulo, Mark wuxuu ku noqday darbigii wuxuuna ka dhigay haweenayda inay mar kale dubaha bilowdo. Xilligaas gacantii albaabka ayaa mar kale dhaqaaqday, haweenaydiina waxay u carartay inay furto, laakiin weli ma dhaqaaqin. Mark oo aad u caraysan ayaa ku hanjabay inuu jirdili doono oo dili doono dadka afduubay maalin uun ka hor inta aysan labadoodu ku noqon shaqada. Isla markii haweenaydu ay bilaabday garaacidda derbiga, gacantii albaabka ayaa mar kale dhaqaaqday. Mark wuxuu tilmaamay in tani tahay dabin, wuxuuna ka dhigay inay iska indha tirto. Inta ay derbiga garaacayaan, in ka badan ayay gacanta albaabku dhaqaaqaysaa, waxayna istaagtaa oo keliya haddii ay dhabarka u jeediyaan. Markay tan ogaadeen, labadoodii waxay bilaabeen inay u dhaqaaqaan dhinaca albaabka, laakiin waxay u socdeen dhabar si aysan u eegin albaabka. Markan waxay ku guulaysteen inay furaan albaabka oo ay galaan qolkii kale, kaas oo isna ah qasnad. Halkan waxay ka helaan qabri furan, xabaal cas oo aan wax qoraal ah ku lahayn, iyo laambad weyn kandaliir oo dhacday. Mark wuxuu eegay qabriga laakiin waxba kuma dhex jirin, markaas wuxuu u qaatay in isaga loogu talagalay. Waxay go'aansadeen inay sii qodaan qabriga gudihiisa, haweenayduna waxay rajaynaysaa in qiyaamadii dhabar ujeedinta ay mar kale shaqayn doonto. Si kastaba ha ahaatee, inta ay qodayaan, albaabku sidii ayuu ahaa. Kadib saacado badan oo qoditaan ah, Mark wuxuu u dumay xanuun dartiis. Wuxuu bilaabay inuu si caro leh u caayo dadka afduubay, wuxuuna yaabay haddii ay rabaan inuu cuno haweenayda. Waxay u malaysay inay dhimanayso, laakiin Mark wuxuu ku dhaartay inuusan weligii samayn doonin waxaas oo kale oo aad u xun, wuuna oyday. Kadib haweenayda ayaa gacantiisa soo jiiday, markuu diiday inuu dhaqaaqona, wejiga ayay ka dharbaaxday. Mark ma lahayn xoog uu ku istaago, markaas haweenaydu waxay sii waday inay haraantiso oo ay gacantiisa soo jiido ilaa ay ka riixday daloolkii. Hadda waa markeedii inay oydo, laakiin si ka duwan Mark waxay u qaylisay ilaa halkii ay dadkii afduubay u qaylin lahayd. Kadib waxay ilmadeedii ku dhibcisay afka Mark si ay u qoyso dhuuntiisa.
isagoo aad u quustay ayay dharka ka bixisay Mark waxayna ku dambayntii isku galmoodaan dhulka. Hurdo fiican kadib Mark wuxuu soo toosay isagoo agjiifa saaxiibtiis halkii uu duqsi agjiifi lahaa. Wuxuu u gurguurtay naxashkiisii uu uga jeexo marada gudaha ku jirtay wuxuuna ku daboolay haweenaydiisii ay buste ugu noqoto ka hor inta uusan mar kale seexan. Daqiiqada kadib gacantii albaabka ayaa bilaabay inay wareegto markana si degdeg ah ayuu u toosiyey haweenaydiisii ay u dhaqaaqaan. Labadooduba aad ayay u daciifeen ku dhowaadna ma istaagi karaan laakiin waxay isiiyeen taageero si ay dhabar ugu socdaan iyagoon eegin albaabka. Markuu ugu dambayntii furmay ayay soo jeesteen waxayna naxeen markay ogaadeen inay ku jiraan dhul qurux badan baradise. Bartaan xaqooda farxadeed kadib wada shaqayn iyo dadaal badan.